halkan waa magaalada dalxiiseedka dalka Uganda ee Jinja waxaana lagu soo gabagabeeyay shirka dhalinyarada ee International Youth Festival kaasoo ay ka soo qayb galeen wadamo badan oo caalamka ka mid ah shirkan oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda East Africa University oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala wadanka Uganda gabagabada shirka ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee wadamada taasoo wadan kasta ku soo bandhigay dhaqankiisa u gaarka qaaradda Afrika waxay ka mid tahay qaaradaha aysan ka jirin horumar weyn isla markaana aysan dhalinyaradeedu wax badan aysan ka bedelin dalkeena Soomaaliya 70% waxa la sheegaa inay dhalinyaro yihiin taasoo ka dhigan in dhalinta Soomaaliyeed wax badan ka bedeli karto isbedelka dalka iyo qaaradaba dhalinyarada ka qayb gashay shirkan ayaa uga warbixiyay muhiimadda shirkan uu leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed warbaahinta qaranka farxad inoo tahay inaan maanta ka soo qayb galno shirka caalamiga dhalinyarada adduunka ee sanadkan lagu qabanayo magaalada Jinja dalka Uganda ka Soomaali ahaan waxaan halkan ku soo bandhignay waxyaabo la taaban karo aan isleenahay dhalinyarada adduunka iyo dhalinyarada qaaradda Afrika oo wadaag kartiin maadaama dhalinyaradu ka caagan tahay mushkiladaha dunida ka dhacay ayaa halkan waxa la isugu keenay inay afkaar wadaagaan dhaqamadooda ku soo bandhigaan ka Soomaali ahaan runtii farxad inoo tahay inaan dalkeena metelno dhalinyarada qaaradda Afrika iyo dhalinyarada adduunka aan wax la qaybsano dalkeena hooyo halkaas ku metelno runtii waxaan soo bandhignay dhaqamada aan hidaha iyo dhaqanka u leenahay Soomaalida haday noqoto ciyaaraha sidoo kale haday noqoto cunnada fashionka waxyaabaha kala duwan runtii ardayda East Africa jaamacadda East Africa waxay ka mid yihiin ardayda mar walba guulo badan ka soo hooya dhaqanka haday noqoto ku tartamaan badan qaaradda Afrika insha Allah hadduu Alle markaana waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano runtii dadkii daawaday daawashada u yimid wadamada kalena way u riyaaqeen ciyaarta aan soo bandhignay iyo maaragtay dhaqankeena suuban hadduu Alle insha Allah aad u mahadsantihiin